waa kuma ninka muslimka ee noqday qofkii ugu taanjirsanaa dunida soo maray. liiska dadka hantida ugu taanjirsan dunida waxaa ka dhex muuqda Jeff Bezos, Elon Musk iyo Bill Gates, laakiin marka hantidooda oo dhan la isku wada daro kuma dhawaanayso dhaqaalihii uu haystay ninkii lagu tilmaamay inuu ahaa bini'aadankii ugu taanjirsanaa ee soo maray taariikhda dunida inta la og yahay. waa kuma Mansa Musa. barnaamijkeenani ayaynu ku eegi doonaa. soo dhow daawade. haddii aad naga daawanayso dhanka page-ka like garee, sidoo kale haddii aad naga daawanayso YouTube-ka subscribe saar. Mansa Musa waxa uu ahaa boqor ka talin jiray wadanka Mali oo ku caanbaxay inuu si xad dhaaf ah u haystay hantidii ugu qaalisaneed xilligaasi oo ahayd dahabka. Mansa Musa wuxuu boqortooyo haystay qarnigii 14aad. sida cajiibka uu dahabka u haystay ayaana ka dhigtay qofkii ugu taanjirsanaa ee abid ku soo noolaada caalamka. wuxuu dhaxlay boqortooyadii uu ka tegay walaalkii oo lagu magacaabi jiray Mansa Abubakar, kaasoo safar uu badda ku aaday aan dib uga soo laabanin. Musa wuxuu markaasi kadib sii kordhiyay hantidii ilaa ay ka gaartay heer aan xisaab lahayn. hase yeeshee ninkan ma aha mid baal dahab ah kaga jira taariikhda wadamada reer galbeedka. wuxuu ahaa nin haysta diinta islaamka. mid kamida waajibaadka u yaalina wuxuu ahaa inuu mar soo xajiyo. aynu ka sheekayno safarkii uu ku tegay Maka. inkastoo boqortooyadii Mali ay saldhig u ahayd dahab fara badan, haddana boqortooyada laf ahaanteeda aad caan umay ahayn. laakiin arintan ayaa waxa isbedeshay markii uu Mansa Musa oo muslim ahaa go'aansaday inuu soo xajiyo isagoo sii maraya lamadegaanka saxaraha ee Masar. waxaa lagu soo waramay in boqorku uu Mali kala tagay wafdi ay tiradoodu gaaraysay 60,000 oo rag ah. waxa raacay dhammaan saraakiishii boqortooyadiisa, askartiisii, majaajilaystayaashiisii, ganacsatadiisii, wadayaashiisii gaadiidka geela iyo 12,000 oo adoomo ah. waxaa sidoo kale raacay ari aad u fara badan oo isugu jiray riyo iyo ido. marka taariikhda looga sheekaynayo waxaa lagu tilmaamaa in safarka boqorku uu ahaa magaalo guuraysay oo dhex maraysay saxaraha. qaahiro markii ay gaareen 1324 magaalada caasimada waa Masar waxaa qaatay duufaan dhaqaale oo ahayd mid kamid ah kuwii ugu darnaa ay shacabkaasi abid arkaan. mar qura waxa magaaladii buuxdhaafiyay kumanaan qof oo Afrikaan madow ah oo isugu jira ciidamo madow ah, muusikiistayaal, ganacsato, aqoon-yahano iyo adoomo, dhammaantood wada haysta dahab xad dhaaf ah. xitaa geela iyo fardaha safarka la socday waxa ku rarnaa dahab. dadkii saboolka ahaa ee magaalada ayaa loo qaybiyay dahab iyo lacag aad u badan. sidoo kale waxay sameeyeen ganacsi degdeg ah oo dadka badeecooyinkooda ugu bedelanayaan dahabka ay wateen. sida uu badnaa dahabka la bixiyay awgeed waxaa dhulka galay dhaqaalihii magaalada Qaahira, dibna u soo kabsan waayay muddo gaadhaysa 10 sano. Musa wuxuu Masar galay isagoo ku fadhiya kursi dahab ah, dharkiisa ay dahab yihiin, ul dahab ka samaysan gacanta ku haysta. Dr. Rudolf Weir oo ka tirsan jaamacadda California ayaa sheegay in hantida Musa ay gaartay heer aan la qiyaasi karin. siyaabo kala duwan ayaa dhaqaalihiisa loo cabiray, waxaase la isku raacay inuu gaarsiisnaa heer uusan wax saameyn ah ku yeelanin hoos u dhaca laga dareemo dhaqaalaha dunida inteeda kale. si sax ah looma garanayo inta ay leekayd lacagtiisa. ma waxay ahayd 400 bilyan, 500 bilyan mise 600 bilyan. dadku waxba kama yaqaanaan tirada hantida uu haystay, ayuu yidhi. markii uu ka soo laabtay xajka wuxuu Mali deegaanadii ku xeernaa uu maamulkiisu gaari ka bilaabay maalgelin lagu xoojinayo aqoonta diinta islaamka. wuxuu dhisay masaajido badan iyo jaamacado. aqoon-yahano isaga kala imaanaya dunida meelaheeda kala duwan ayaa u tegay Mali si ay wax uga bartaan culumta islaamiga iyo shareecada. haddaba halkuu ku dambeeyay taanjirkani dunida mar soo maray? boqortooyadii Mali sare ayay u sii kacaysay inta badan waqtigii uu noolaa Musa, xitaa markii uu dhintay kadib oo lagu qiyaasay inay ahayd 1337. boqortooyadu waxay ku sii horumartay intii ay gacanta ku hayeen wiilashiisii. hase yeeshee markii ay kordheen boqortooyinka ka soo horjeeday ee cadowga ku ahaa, sidoo kalena ay bateen xeeladihii ganacsiga adduunka, boqortooyadii Musa uu ka geeriyooday waxay bilowday hoos u dhac qarnigii 15aad. inkastoo dhaxal la yaab looga tegay adduunka, Mansa Musa laguma xuso culumta taariikhda ee laga bixiyo wadamada Mareykanka iyo Yurub.